baryahanba waxaa la isla dhex wareegayay kadib markii xulalka Argentine iyo wadankaasi Sacuudi Carabiya ay ku kala badiyeen 1 iyo 2 ayaa waxaa dhacday in aad internetka loogu wareejinayay sawirro muuqaalo muujinaya isla marhaantaana lagu bahdilayo Messi. haddii aad taqaanay Messi aaway Messi ayaa lagu qorayay baraha internetka 36 ciyaarood oo ay ciyaareen xulka wadanka Sacuudiga waa ciyaartii ugu horeysay ee ay ku guuleystaan. taasi ayaana muujisay ididiilo muujinaysa in ay koobka adduunka si adag ugu loolami doonto iyagoo soo bandhigay xulka Sacuudigu ciyaar aad iyo aad u qiimo badan oo aad loogu riyaaqay. waxaa sidoo kale baraha internetka aad loo wareejinayay in xulkii Argentine oo ka mid ahaa kuwii loo falanqeynayay inay qaadi doonaan koobka adduunka in ay noqdeen kuwa aad iyo aad loogu qoslo oo lagu maadeysto xilli wadanka Sacuudigana la amray fasax maalinkaasi oo ahayd maanta. waxaa muuqata gebi ahaan in ciyaartii ay ciyaareen xulalka Argentine iyo Sacuudigu ay ku kala badiyeen 2 iyo 1 oo ay guusha ku raacday Sacuudiga. ciyaari waa gelin dambe bal waa la eegi doonaa isreebka xiga iyo halka ay ku dambeyn doonaan labadan xul ee xulka laga badiyay xoog lagu saadaalinayay inay qaadaan koobka adduunka. ciyaaruhu si xalad la ay u socdaan koobka adduunku ilaa iyo haatan wadamo badan ayaa ciyaaray xoog ayaa la isku reereebay laakiin ciyaartu waa bilow waan eegi doonaa muddo bil ku dhawaad oo ay socon doonaan iyadoo ugu dambeyn la soo gabagabeyn doono koobka adduunka oo finalku ay noqon doonto 18 bisha December ee sanadka 2022. waa kee xulka aad taageersan tahay ee aad is leedahay